لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هبت هبوبها. Big time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ولا أصحاب تقاليق بارك الله فيكم. ولا الذين سعيد علي جامع عبد الله نور يحيى وحين قصوا عد سدين إن نسوق هذا تاريخ دا شيخ عادل الكلباني إن شاء الله تعالى وحين نكور رمي دونا شيخ ورمتي واختيادا دنبئات اسبدل وين وقم وغضوه كمدها إمام كمدها إمام يدي سومر مسجد الله الحرام حدنا ugu imika meelo fara badan oo aan culimada waaweyn iyo dadka ahlu cilmiga aan lagu arkin waxaynu soo qaadan doonaa taariikhdiisa imaamnimadii uu ka noqday masjidullahi alxaraam iyo mukhaalafaadka dambe ee uu la yimid ee lagu haysto waxaana twitterka looga yaqaanaa qaasiful jabahaat inuu markaasi maalinta meel uu duqeeyo duqeymooyinka uu geystaa way fara badan yihiin waxaa ka mid ah qof ayaa commentiga wuxuu ugu soo qoray ما أحبك شو الحل كما جعليه شيخو محا حله مركاسا وحو ugu jawaabay الشياطين لا تحب الملائكة شياطين تبا ملائكة ما جعلا شيخ عادل الكلباني مقعيس ودميستنا وحا لا يراهدا عادل بن سالم بن سعيد الكلباني وحا لغونا نيسا عبد الإله وحا وكل شيء مقالة الرياض كن صدح بقول يسيدية تضباتنكي هجرية كن سقال بقول يسقالية كنتنكي وحا وقالي دوكسيجيسي يوسى سعيد بن جبير دوكسيجيسي دحنا وحا وكبحي ابن زيدون دوكسيجيسي سر وحا وقالي اليمامة وحا نكقالي قيبت علمك waxa uu ka baxay 1398 waxa uu galay jaamacadda Malik Saud kulliyadda cilmiga haddana waxa uu u wareegay kulliyadda shareecada muu dhameystiran markaasi shareecada waa uu ka baxay sababo jira awgeed waxa uu shaqo tagay markaasi madaarka ku yaala magaalada Riyaad halkaas oo uu ka shaqeynayay muddo 6 sanadood isbedelkiisii nololeed inuu xagga diinta u jeesto iyo khayrka iyo xifdiga quraanka waxay ahayd wiili 1359 waqtigaasi oo ay dhinteen markaasi dad Sacuudiga iyo caalamka ka caan ahaa oo la yaqaanay waxaana kamid ahaa markaasi boqor Khalid waxay igu keentay taasi inaan ka fakiro geerida iyo waxa ka dambaysa waxa uu dhageystay Sheekh Manshawi aayadda wajaat sakratul maut bil haqq taasi oo wuxuu igu keentay inaan ka fakiro geerida iyo maxaa ka dambeeya waxa uu jeestay xagga diinta waxa uu muadin ka noqday masaajid ku yaala xaafadda uu degan yahay ee al-Yamaama 1403 waxa uu markaasi imaam iyo khatiib ka noqday masjidka la yiraahdo Salaaxudiin haddaba waxa ku adkaatay inuu isku wado shaqadii madaarka iyo imaamnimadii uu masaajidka ka hayay waxaana uu yiri markaa isagoo ka waramaya salaada duhur waxa la iga rabay inaan masaajidka tujiyo anigoo shaqada ku jira shaqada ayaa ka soo carari jiray waxaan iman jiray masaajidka maryaha ayaan bedelan jiray haddana dib ayaan ugu noqon jiray shaqadii taasi oo markaasi culays ugu keentay sida awgeed ayuu 1404 waxa uu ka tagay shaqadii uu ka hayay markaasi madaarka waxaana uu go'ay imaamnimada masaajidka culimo badan ayuu markaasi wax ka dhigtay oo ijaasadna ka qaatay culumtana ka bartay culimada uu cilmiga ka bartay waxa kamid ah Sheekh Ahmed Mustafa Abul Hasan waxa uu ka qaatay ijaazada riwaayatu Hafs can Aasim 1407 sidoo kale waxa uu ka qaatay markaasi ijaazada Hafs can Aasim Sheekh Nabhan ibn Hussein al-Masri waxaanu kaga qaatay muddo bil ah gudaheed ayuu ku qaatay 1417 sidoo kale waxa uu ka qaatay riwaayada Qaaluun can Naafi' 1422 sheekh la yiraahdo Sheekh Maxamed Abdul Hamid Khalil sidoo kale waxa uu culumta sharciga ka qaatay
culimo dhowr oo ay ka mid yihiin sheekha la yidhaahdo sheekh xasan qaanim iyo sheekh cabdullaahi jibriin iyo sheekh mustafa muslim sidoo kale waxa uu ijaasaad qaatay kutubta qaar ay ka mid yihiin markaasi fiqiga xadiidka iyo tajwiidka oo kutubta qaar uu ijaasaad ka haysto oo uu ka qaatay 1408 waxa uu imaam ka noqday masjid la yidhaahdo masjidu khaalid oo loogu magac daray boqorkii sacuudiga ee la odhan jiray khaalid masaajidkaasi waxa uu imaam ka ahaa muddo 20 sannadood ah وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين kadibna markay taariikhdu ahayd 1429 ayaa waxaa laga soo dalbaday inuu ka mid noqdo imaamiyada masjidullaahi alxaraam tujinaya bisha ramadaan sidaasi ayuu uga qayb galay bishaasi ayuu tujiyey bishii ramadaan ayuu taraawiixda tujinayay markaasi masjidullaahi alxaraam haddaba markii ay dhammaatay bishii ramadaan ayuu sheekhu masjidul xaraam ka tegey imaamnimadiisina muu sii wadin warar waxaa jira sheegayey in isaga iyo markaasi sudaysi ay isku dhaceen sidaana meesha looga saaray isagoo arrinkaa ka jawaabaya ayaa wuxuu yidhi سديس جزاه الله خير ليس بيني وبينه يعني ما يظن من الخصام والقطيعة ربما يختلف. anigiyo sudaysi wax xumaana iyo wax dhibaatoona dhex maray ma jiro wax xumaanoo naga dhexeeyaana ma jiraan masaa'il aanu isku khilaafsannahay way jirtaa laakiin wax xumaanina may dhex marin masjidullaahi alxaraamna markii la ii yeedhay waxaa laygu yeedhay buu yidhi mushaaraka inaan mushaarakeeyo oo aan kala qayb galo marka laba mid way noqon kartaa in la kordhiyo muddadii oo bisha ramadaan markay dhammaato aan imaamnimadii sii wado iyo inaan halkaa ku joojiyo aan sidaa fasax ku ahay buu yidhi inkastoo ay jiraan arrimo aan odhan karo buu yidhi waa nooc minal shirqool oo kale isagoo arrinkaa ka warramaya ayaa wuxuu yidhi markay bishii ramadaan dhammaatay maalinkii ciidda salaadii subax waxaan ku tukaday hoteelkii aan ku jiray kadibna qolooyinka masjidullaahi alxaraam maamulkiisa ku jira ayaa waxaan weydiiyey inay jirto markaa ka qaybgal salaada ciidda markaa lagala qaybgalayo boqorka markaasi sacuudiga waxaana jirtay in imaamiyada markaa la dooransiiyo inay la soo tukadaan salaada ciidda boqorka sacuudiga iyo inaanay la soo tukan oo ay ka cudur daartaan arrinkaasi ayaan weydiiyey markaa wuxuu igu yidhi waxba kama jiraan arrinkaasi liisaska iyo magacyada ka qaybgalaya ee boqorka la tukanayana kuma jirtaan ayuu yidhi iyadoo sidaasi tahay ayaa haddana waxaan weydiiyey imaam ka mida imaamiyada rasmiga ee masjidullaahi alxaraam isaguna wuxuu ii sheegay inaanu waxba ka ogeyn waxa uu yidhi mid ka mida ilaalada ayaa markaasi ii sheegay inuu magacaygu ku jiro liiska markaasi lagu casuumay inay boqorka la soo tukadaan salaada ciidda kadib markii aan ogaaday ayaan si dhaqsaa u baxay buu yidhi si wanaagsan baa naloo soo dhoweeyey salaadii ciidda ayaan la tukaday waxaan arkay buu yidhi markaa kursigaygii oo bannaan oo magacaygii ku qoran yahay aniga iyo boqorka waxaa noo dhexeeyaba ilaa 5 kursi baa noo dhexeeya marka wuxuu yidhi arrinkaasoo kale ayaa jira adigoo xafladiina lagugu talagalay oo magacaagii ku qoran yahay oo booskaagii bannaan yahay in lagu yidhaahdo markaasi kuma jirtid marka haddii aan ka maqnaan lahaa buu yidhi waxaa iman lahayd in markaasi tuhum laysweydiiyo oo lay tuhumo ama si xun markaasi loo fasirto arrinkaasi ayuu sheegay haddaba sheekhu markii uu ku soo noqday masaajidkiisii khaalid ayaa wuxuu ku war helay in masaajidkii isaguna uu ka maarmay oo markaasi ay imaam kala qabsadeen oo imaamkaasi ay deysteen arrinkaa isagoo ka warramaya ayaa wuxuu yidhi markii aan tegey masjidullaahi alxaraam ayaa qoladii maamulka masaajidka haysay masjidkii aan imaamka ka ahay boqor khaalid ayaa waxay ka cadhoodeen oo ay ka xumaadeen tegitaanka aan tegey masjidullaahi alxaraam ee aan kala qayb galay sidaasi ayaanay meesha iga saareen inanuu dhalay markaasi boqor khaalid oo ka mid ah maamulka masaajidka ayaa iyana mar arrinkaa la weydiiyey ayaa waxay tidhi sheekhu waxa uu naga tegey annagoo u baahan oo masaajidka cid markaa bisha ramadaan tujisa oo beddesha aanay jirin ayuu naga tegey sidoo kale waxay tidhi noomuu sheegin inuu markaasi tegayo oo uu masjidullaahi alxaraam tujinayo sidaa awgeed ayaan annaguna imaam kala keensannay imaamkaasi ayaanan ku daysanay وراح بس احنا يعني ما كان في احد في يقوم بمقامه ولا نبغى اي احد يجي الحمد لله ربي جاب لنا sheekhu waxa uu ku dhacay masjid la'aan wuxuu yidhi intii aan bilaa masaajidka ahaa waxaan uga faa'iidaystay dacwadda waxa uu u baxay safarro waxaa ka mid ahaa ingiriiska siiralaanka masar iyo kuwait markii uu soo noqday ayaa waxa uu imaam ka noqday masjid la yidhaahdo cabdilmuxsin almuxaysini oo markaasi dhismihiisu socday
waxaana la furay 1430 haddaba sheekhu 2010 ayaa wuxuu fatwooday oo uu sheegay inay heesuhu ay xalaal yihiin oo ay bannaan yihiin nas cad oo sheegaya inay heesuhu xaaraan yihiinna aanay jirin haddaba mar la weydiiyey oo lagu yidhi markan xafalaadka ka qayb galo keebaa fadli badan oo wanaagsan ma sacabka ayaan tumaa mise wanjaasa waxa uu ugu jawaabay arrin aad la yaabayso waxa uu yidhi markaasi qofka waxa uu fiican ama la faraa waxa uu si fiican u yaqaano haddii aad sacabka taqaano sacabka tun haddii aad jaaska taqaanona jaas haddii aad heesaha taqaanona markaasi hees أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟ أخونا اسمه فلان الفلاني يقول له والله يا أخي شوف ماذا تتقن أنت، لأن الرجل أو المرء مطالب بأن يفعل ما يتقنه، فإذا أتقنت الرقص فارقص، وإذا أتقنت التصفيق فصفق، وإذا أتقنت الغناء أيضا فغني معهم. وفقك الله. culimo badan ayaa markaasi u jawaabay waxaa ka mid ahaa macalinka usuusha dhiga ee jaamacadda umulqura oo la yidhaha maxamed sacadi ayaa wuxuu yidhi fatwada noocaasi waxay ku tusinaysaa fasahaad iyo waracyari sidoo kale waxa uga faa'iidaysanaya buu yidhi oo ajendayaashooda dhex marsanaya dadka markaasi dacwadda iyo saxwada ku cadowga ee ka soo horjeeda sheekh saalix al-luxaydaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee sacuudiga ayaa mar la weydiiyey arrinka culimada heesaha bannaynaysa ayaa wuxuu yidhi الكلباني الله يهديه ويصلحه يعني ما هو في غنى عن هذا الأمر كله ليته بقي على أصله وإمامته في مسجد خالد berigii hore laguma dhiiran jirin in fatwo caama oo culimada waaweyn ka soo baxda in markaasi laga hor yimaado laakiin wuxuu yidhi kiina noolaadaa wuxuu arki doonaa ikhtilaaf fara badan waxaanu markaasi yidhi sheekh caadil alkalbaan waxa uu soo noqday imaam masjidullaahi alxaraam masjidu khaalidna imaam ayuu ka ahaa fiicnaan lahayde inuu imaamnimadiisa ku ekaado waxaa dhacday markaasi xaflaadkii laga qabanayay sacuudiga mid ka mid ah oo markaasi fanaaniintu ay ka heesayeen ayaa inan baa intay jibootay ayaa ay masrixii fuushay kadibna fanaankii heesayey ayay markaasi ku dhegtay oo ay laabta gelisay taasi oo buuq badan markaasi sacuudiga ka dhalisay oo dadkii aad ay uga cawdeen fasahaadka iyo dhibaatada soo korodhay ayaa sheekhu waxa uu ku soo qoray twitterkiisa oo uu yidhi فتاة أخطأت أو قل فعلت منكرا ثم ماذا تؤدب وتنتهي القضية waxau yidhi markaasi inantu waa ay gaftay qalad bay samaysay ama waxaa tidhaahdaaba munkar bay samaysayba kadibna maxaa la yeelayaa waa la edbinayaa dee kadibna hawshu sidaasi ayay ku dhammaanaysaa isagoo markaasi hawshaa fududaynaya oo le maxaa waxaanoo buuqa iyo waxaanoo hadala markaasi keenayaba waa inan gaftay oo qaldantay kadibna waa la edbinayaa waa laga jaraya wixii ay dambi lahayd hawshuna sidaasi ayay ku dhan tahay isagoo markaasi fududaynaya dad badan ayaa u soo jawaabay markaasi waxaa ka mid ah kommentiyada u soo jawaabay sheekha waxa uu yidhi tamyiicu ddiini wa tashiilu lmunkari walfasaadi alakhlaaqiyi طabcan laa yuqariduuna ila biawaamiri min salmaana wabni salmaan waxa uu yidhi markaasi in diinta la noocnooc loo dhigo oo kolba si loo dhigo oo markaasi la fududeeyo xumaanta iyo fasaadka iyo akhlaaq xumada in la sahlo oo wax yaroo fudud laga dhigo waxay ku tusinaysaa yacnii arrinkaa ma sameeyaan ilaa awaamir bay ku samaynayaan salmaan iyo ibnu salmaan ay markaasi amrayaan mid kale u soo jawaabay ayaa isaguna wuxuu yidhi wasafta alcarda famaada can ilmaradi caradkiibaad markaasi aad sheegtay arrinkiibaad sheegtaye laakiin xanuunkii keenay maxaad uga hadli weyday munkarka ugu weyni waxa weeyaan in la qabto mithla hada alxafalaat xafalaadkaasoo kale in la qabto ayaa munkarka ugu weyn mid kale ayaa wuxuu yidhi waa maxay sababta kicisay shahwadeeda iyo shaqafkeeda iyo wixii ay jeclayd ilow siiyey in allahu arkayo ummadna ay hor taagan tahay ilow siiyey akhlaaqdeedii ilow siiyey waa maxay buu yidhi waa miisiga markaasi la tumayo iyo heesaha la qaadayo ayaa markaasi sidaa ka dhigay marka munkarka ugu weyni waa maxay waa in markaa in la suuliyaa dhibaatadan arrinka keenay waa in la suuliyaa buu yidhi sidoo kale 2018 sheekhu waxa uu ka qayb galay markaasi xaflad furitaan la furayo wax la yidhaahdo albaloot ama meel waxaan filayaa inay tahay turubka lagu ciyaaro ayuu markaasi ka qayb galay waxa uu ka jeediyey kelmad oo halkaasi ayuu ka hadlay waxaanu sheegay inuu markaasi ka xun yahay oo uu ka murugoonayo markaasi inuu yaraantiisii baran waayey turubkan
iyo ciyaartan inuu baran waayey inuu ka murugoonayo ay markaasi cidda ciyaaraysaana ay si fiican oo wanaagsan oo bilaa xasarada ay ku ciyaaraan. miiska ayuu fadhiistay isagoo waraaqaha qaybinaya ayaa markaasi sawiraan laga qaaday oo uu ka qayb galay si nooc min inuu xayeysiinayo oo kale, taasoo iyana buuq fara badan dhalisay, iyadoo markaasi culimada waaweyn ee Sacuudigu ay soo saareen ciyaartani inay xaaraan tahay oo markaasi ay ku xaaraan tahay inay qofka waqtigii salaadina ay dhaafinayso, waqtiga ay ka dilayso, sidoo kale ay dhaliso cadaawad iyo in caloosha wax la isugu qaado. weliba waa marka aanay lacag la dhiganaynin ee aanay khamaar ahayn. hadday khamaar tahayna dembigeeduba uu ka sii weyn yahay. haddana 2021 ayaa sheekhu waxa uu sameeyey xayeysiis markaasi uu waxaysiinayo mawsimu riyaad waxa la yiraahdo xafladaha iyo markaasi waxyaabahaasi iyo heesaha lagu qabanayo, isagoo markaa xayeysiinaya ciyaar ama game la yiraahdo combat field la yiraahdo ayuu xayeysiinayay. xayeysiiskaasi ayuu ka soo dhex muuqday iyadoo aad loo yaabay oo dadku markaasi ay madaxa qabsadeen imaamkii masjidullahi alxaraam iyo sidoo kale qaari ka mid ah quraadii waaweynaa oo maanta ay halkaa la marayso inuu xayeysiis uu game xayeysiiyo aad loola yaabay. haddana 2022 ayaa haddana xayeysiiskii uu ku celiyey mar labaad oo isla sanadkaasi, iyadoo markaasi uu xayeysiiska ku matalayo iyadoo laga soo qaatay filim Maraykan ah oo markaasi la yiraahdo kursi ku dagaalan ama carshiga lagu dagaalamayo. filimkaasi ayaa laga soo qaatay markaas sidaasi ayuu isna matalaadii uu ku jiro. markaas arrinkaasi ayaa iyana aad loola yaabay oo markaasi madaxa la qabsaday. marka waa arrin cajiib ah. sheekh soo maray martabada gaadhay inuu noqdo imaam masjidullahi alxaraam, dhulka ilaahay halkii ugu daahirsanayd ee ugu qiimaha badanayd inuu imaam ka noqdo oo hormood ugu noqdo, haddana xaaladaasi inuu giim xayeysiiyo ama meelahaasi ka soo muuqdo. waana arrin ay tahay inaynu ku cibro qaadanno oo aynu ka fikirno. qisaska iyo taariikhda waxaynu u soo qaadanaynaa ma aha sheeko bareley, laakiin waa inaynu ku cibro qaadanno. waxaad sawirataa sheekh soo maray ama gaadhay mansilada inuu noqdo imaam masjidullahi alxaraam, dhulka ilaahay halkii ugu daahirsanayd ee ugu qiimaha badnayd inuu imaam ka noqdo, ummadda muslimka oo dhan ay ku daba tukato. haddana markaasi u jeestay heesaha inay xalaal yihiin iyo xafladahaasi iyo inuu waxaasi ka qayb galo. waa arrin markaasi u baahan ku cibro qaadasho, qofkuna mar walba uu ilaahay weydiisto inuu ciribtiisa dambe uu wanaajiyo. allahumma axsin caaqibatana fi lumuuri kulliha baa lagu ducaystaa markaasi, oo ka mid ahaa ducooyinku rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray. marka qisasku waa inaynu ku cibro qaadanno. sheekhana ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa inuu xaqa ku soo celiyo oo markaasi meelaha uu galay iyo waxyaabaha mukhaalafaadka ee muranka badani ka joogo in ilaahay subxaanahu watacaala uu diintiisa u soo celiyo iyo qur-aankiisa iyo imaamnimadiisii iyo khayrkii uu ku jiray ayaynu ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.